فيديو سمع دار هاي جالسيس إلهي درت ولا لي ما لو جالسي هذيك العقرية دوانا حفظ wiilka yarka idin muuqanaya qalbiga ayuu ka holcayaa uurkana waa uu ka gubanayaa waxa uu baadi goobaya oo uu baafinaya oo uusan nolol iyo geeri midna uu ku haynin hooyadii xitaa magaceeda ma garanayo aabihiina waa uu geeriyooday haddii uu ka heli lahaa magaca hooyadii wuxuu igala soo hadlay luuqa muuqaalkan ayuu ii soo diray isagoo iga codsanaya in muuqaalkan aan u baahiyo ummadda Soomaaliyeedna aan u gaarsiiyo oo ay u sheer gareeyaan oo hooyadii lala baadi gooba waxaan marka adiguna ka codsanayaa in muuqaalkan aad sheer gareyso oo meel fog wiilkan yarka aad u gaarsiiso waxa macquul ah oo suurtagal noqon karo hal sheer oo adiga aad sameysay in wiilkan ilaahay hooyadii ugu soo sahlo oo hooyadii uu ku helo adiguna sida ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu kugu siiyo ajir iyo xasanaad aad u weyn aad baa u maasantiin wiilkan yarkaahi wuxuu yaqiin magaciisa magaca aabihi sidoo sheegayna waxa soo korisay eedadii hooyadii isagoo yar ayuu aabihii ka soo qaatay aabihii haatan raxmadii janna Allah ka waraabiye waa uu geeriyooday laakiin hooyadii ilaa haatan meel kuma hayo magaceeda ma yaqiin aabaheed ma yaqiin abtiyaashii ma garanayo raabtigii ma garanayo kaliya wuxuu hayaa reerka guud ee hooyadii ay ka dhalatay waxa suuragal ah haddii hooyadii muuqaalkan uu gaaro waxa sahlanaanayso in ay garato magaca wiilkan aabihii ninkay wiilka u dhashay maadaama ayadu qudheedu ay hooyo tahay oo wiil uu ka maqan yahay oo laga yaabo meel ay u baadi goobto iyo meel ay ka raadiso in aysan garanayn waxa suuragal ah in ay hal magaalo isla joogaan oo meel fog aysan kala jirin sida darteed wiilkan yarka aynu ku garab istaagno aynu ku caawino in hooyadii uu bal nolol ama geeri mid uu ku helo haddii hooyadii ay noosh wuxuu rabaa inuu hooyadii helo oo iyada uu la midooba haddii hooyadii ay geeriyootayna waxa uu doonaya waxay tahay inuu abtiyaashii iyo habaryarihii iyo family-ga hooyadii uu helo oo sida iyagu uu la midooba muuqaalka uu soo dirayna waa kan ila daawo meel baacatiin soo dhawaada horta maanta iga codsanahay ana horta aabe oo dhintay hooyadii meel ku sheegay marka walaalayaal waxa iga maqan hooyaday macaanta iga maqan cunug arday isku dhigta xanuunkiis waa dareemi kartiin marka walaalahay waxa codsanahay in hooyada ila raadiyo oo meel kasta ila maqan hooyada ila codsanahay walaalahay wallahi maanta hooyada haysanahay way dhacay qodaan maanta aabihi haduu in noolaalahay uu ii sheegay horta aabihi waxa la dhahaa al xidig cala warsi fiid waa aabihi hooyada isku guursadeen xamar isku guursadeen dhahay xamar isku guursadeen aabihi hooyada isfureen marka isfureen aabe waxa la gacanta ugu jira gacanta ugu sida oo gabar eedida Saciida Faarax fiido ah oo gacanta u galiyaa dhaha marka galiyo waxa galiyo gabadha Saciida Faarax way weydiisay aabe waxay weydiinaysaa anigan waxa la marka abgaal waa dhahay horta abgaal uu sheegay ana abgaal marka aqaan marka hooyada magaceeda meel ku sheegay magaceeda ka soo ay dhacalahay marka walaalay qofkii yaqaan oo ilaahay dartiisa u yaqaan asxaabina walaalay ugu xiran waxa rabaa inuu ii sheegay fiidiyoos ina gaarsiyo hadii habaryartii noosh ama abtiga oo ina awoonir inuu fiidiyo gaar rabaa walaalay qaaliga asxaabi hooyo aan xanuunkii waa dareemisay aabiina oo dhinta doo aabi ii sheegay oo ii joog lahay barkila waxay ahayd hooyadii mar raahin lahay xataa waxbarashada teelfon heersana gala hadna fasalka iskuulka waxa ay baarka lixada marka walaalay ii soo duceeya inta ay asdees hooyada aqoon ay soo duceeyay fiidiyo samaad dheer ay gaarsiis إلهي درت ولا لي ما لو جالسي هذيك العقرية دوانا حفظ نمبركين واشياء وقدمت أمريكي وحوي فراهل صدني الله حفرت إسداد أبعتي إسداد مركك عليا فراهل صدني الله حفرت إسداد أبعتي إسداد مركب ولا لي هاي الحنون كي بدل مكرت إلهي درتي وشال أقريب بالله يحفظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودمبيدي wiilkani wuxuu nala wadaagayaa oo uu sheegayaa lambarkiisa hadii aad garanayso hooyo uu wiil ka maqan yahay ama aadan garanaynba muuqaalkan sheer gare si aynu u gaarsiino muuqaalkani qoyska hooyada ay ka soo joodo ayaguna wiilkooda ay ula xariiraan maadaama lambarkiisa uu yeerinayo lambarkiisa ay wacaan oo ay la xariiraan waxaan wiilka yarka ugu duceynayaa oo aan leeyahay walaal ilaahay subxaanahu wa ta'ala hooyada ha ku soo sahlo oo midkii noloshiisa la midooba Allah ka yeelo waynu ku soo duceynaynaa ummadda Soomaaliyeedna waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ka codsanaynaa in muuqaalkan meel fog wiilkan loo gaarsiiyo loo sheer gareeyo si uu hooyadii nolol ama geeri mid ugu helo aad baa u mahadsantiin